gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolkan Awdal Cabdikariin Muuse Maal oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu sheegay in dalka Soomaaliland uu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu sameeyay cadow cusub oo ay yeelatay Soomaaliland waa sida hadalka u dhigay waxaana uu sheegay walow ay bilow tahay oo ay boqolkii habeen ugu horeeyay imika ay leysteen laakiin ifafaalaha muuqda iyo sansaanta maanta baxaysa waxay tusaysaa cadaalad in looga baahan yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo cadaaladii runtii ay aad iyo aad u dhimatay ayna ku saqiirtay dhabta madaxweynaha inuu dooranay ee Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha waxa la yiraahdaa cadaalad waa sida cawsh kaliya waxaan u baahanahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad baa deeqda cadaalad in la isku wado qurux yeelan maayo qaran qoys qurahaati aw moogtahay horboodayo qurxi qaranka oo qabyada ka biyo madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland ha ka wada dhex muuqato magacaabisahaga docda ka raran madaxweyne qurxi Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha muddadii la doortay ilaa maanta qaranka Soomaaliland waxay geliyeen heegan korneeladu runtii waa la filayay dulka u talinayaan inuu moogtahay inuu gali doono sansaan colaadeed habeen walba madaxweynuhu cunfi iyo colaad ayuu moogtahay media mariyaa waxa la madaxweyne cadaalad baan rabnaa ee looma baahna colaad iyo cunfi iyo cadaawad aad u sameeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ictiraafka Soomaaliland ma yaalo DB Well mana yaalo London ee wuxuu yaalaa Boorama iyo Laascaanood Soomaaliland oo ay nagu si xor ah u qaybsano oo si cadaalad iyo sinaan u qaybsano ayaa la ictiraafiyay diidinayna dhageysani madaxweyne qurux yeelan maayo qaran qoys qaraha tu talanayo habeen walba qoys baad la shirtaa madaxweyne qarankiina waa maqan yahay marka qaranka baadi goob Soomaaliland maanta odaygu adiga haddii ay maanta Soomaaliland guul gaadhan adiga magaceega yeelanaya haddii ay nusqaan gaadhana adiga magaceega yeelanaya laakiin ifafaalaha muuqday maanta wuxuu yahay in laga dayrinayo qarankii halka ku socdo iyo halista iyo colaadda Soomaaliland iyo cadawga cusub ee u sameysay arrimo dibadeed baad gashay madaxweyne iyadoo arrimihii guduhu qabiyay inoo yihiin gudaheeniba wali qabya ka muuqata qarankii quruxan lahayn qoys kaliya hataa madaxtooyadii fadhiya halka uu hooseysay ilaa ka dhulka xaariyay madaxweyne waa qoyskaaga marka waxaan ku leenahay qaranka qurxi soo daadeji Soomaaliland ha hor socdaan reer Laascaanood iyo reer Boorama si ay qurux u yeelato sidii 1960 Soomaaliland markii ay xornimada ka qaadanaysay gumaysiga Ingiriiska waxay horkacay beelaha dariifyada quruxda Soomaaliland waa taas madaxweyne istakale gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay markaan uu si baan u dhaliilay barasaabka gobolka Awdal iyo maayarka degmada Boorama oo uu ku sheegay kuwa aan gudan waajibaadkii loo igmaday isla markaana uu sheegay in ku fashilmeen waajibaadkoodii shaqo abaar badan baa runtii laga soo sheegaya xeebaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay raxmaadkii Ilaahay roobka inoo shubay oo ku yaryahay gurmad badan oo weli ma helin barasaabka gobolka Awdal ee muddada la soo magacaabay xukuumadda jirto runtii ma muuqdo in shaqadii barasaabnimo qabanayaan barasaabka gobolka Awdal wuxuu noqday boorso jeebada ugu jirta Maayer Maxamed Xuseen Meedhane oo uu daniisa ku fishato kursigana ku ilaashado wali lama arag barasaab Soomaaliya gobolka Awdal oo xafiiska Maayerka isagoo hor jooga Maayerkii muna soo baxayna barasaabadu awood bilahan jireen ay Maayerada day wax uga baahan ugu yeedhaan wada shaqeyn ay lahaayeen barasaab Maayer raadinaya kan hortii lama arag Maayerkina wuxuu baday runtii wixii dadka uu qaban lahaa ku naasnuujiya barasaabka si uu mooshinada uga wiciyo waxaan leenahay mudane gudoomiye kaalintaada garo waxaad u siman tahay ama dhex u tahay dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Awdal maayarka Baki maayarka Luqaye ka Boorama ku sinaadaan waxaanad ka baxdaa xildhibaanada 22 ku noqotay degmada Boorama xildhibaanka 22aad oo la soo magacaabeen baan ku aragnay ka dhex baxay xildhibaanada ku milantay oo odaygii gobolka noqo oo kaalintaada qaado maayarka degmada Boorama waxaan leenahay waxaan isqaaniya ayaan daraa inaad mashaariicii GBLG-ga ka baaqatay ee sanadkii hore la qaban lahaa la dhameynba lahaa inaad maanta Muuse ku amaanto oo aad kursiga ku ilaashato dariiqii halbowlaha ah magaalada qaybna cadceed baa disho lama mari karo daamirka waa la xidhaayo oo dhalaalaa qaybna dhooqa disho dadkii waxay ku noqotay meel la mari kareenin kala hore inaad dhamaysahayd gudoomiye ma garanayno waxa xilliga kugu soo gaadheen mashaariicda lagu dhamayska tiray malaha amaanta Muuse la sugaysay de gudoomiye qabyada ka biigo degmada oo dhis oo ka daa wixii mashaariicda lagu fulin lahaa ama gobolka lagu qaban lahaa ee aad moogtahay barasaabada ku naasnuujinayso waa Jamaal Umar Tube telefishinka caalamiga BC24 TV magaalada Boorama